asxaabta waa mar kale iyo Ayuub Show sheekadani waan hubaa inay ku dhiiri gelin doonto sanadkii 2019 ayaa Dr. Xasan iyo koox dhaqaatiir ah oo aad u tirayar waxay ka baxeen jaamacadda Camuud ee magaalada Boorama qaybteeda caafimaadka waxaana halkaas ka bilaabmay rumaynta rajo socotay in badan Dr. Xasan ayaa waxa uu ka mid noqday arday tirayar oo ku guuleysatay inay waxbarasho ka helaan mid ka mid ah jaamacadaha dunida ugu wanaagsan amaba jaamacadda dunida ugu wanaagsan ee dalka Mareykanka ee Harvard tanna waa sababta ugu weyn ee ka caawisay Dr. Xasan inuu ka biiro kana mid noqdo ardayda wax ka barata jaamacadda Harvard wax aad ii caawiyay ugu weynaa mar walba aan arkay waxa ahayd xiriirada ama waxa loo yaqaan networking shir kasta ama meel kasta oo uu baxo wadanka dibadiisa wixii aan ku arko ama cidii aan la kulmo networks baan kala qaadanaa waxaan isku dayaa in networks-ka aan ilaaliyo waxaan isku dayaa in wadanka aan ku soo celiyo waxaan isku dayaa in aan ku hagaajiyo cidda hawlahaas oo kale ka mas'uulka ama ka shaqeysa wadanka si loo horumariyo waxaan hubsadaa ilaa inta laga gaarayo guulaha loo baahan yahay jaamacadda Harvard waxaan ku maqlay barnaamijkeeda Global Search and Social Change waxaan ku maqlay shir aan ka qayb galay waxaana ay ka shaqeeyaan horumarinta siyaasadaha caafimaad gaar ahaan qalliinka obstetricska iyo suuxdinta sidii ay dawladdu u samaysan lahaayeen qorshayaal 5 sano kadib waxbarashada Harvard Dr. Xasan ayaa waxa uu ka mid noqday guddi ay jaamacadda Harvard u dirtay qaaradda Afrika gaar ahaan dalka Namibia si ay u soo qiimeeyaan heerka caafimaadka iyo qalliinada guud ahaan qaaradda Afrika waxaana Dr. Xasan uu ka mid ahaa koox la shaqeynaysay wasaaradda caafimaadka ee dalka Namibia taasi oo ay soo dirtay jaamacadda Harvard haddaba fariintan ayaa Xasan waxa uu diray dhalinyarada jecel inay wax ka bartaan mid ka mid ah jaamacadaha dunida ugu qaalisan sida Harvard oo Xasan wax ka soo bartay fariintan la wadaagayo ardayda doonaya inay jaamacado wadanka dibadiisa waxbarasho ka dalbadaan waxa weeyaan kow in ay dalbadaan jaamacado kala duwan ay u diraan codsiyadooda in ay aad u qoraan waraaqo muhiim ah oo runtii qayb lahaad ka qayb qaata applicationska qofka uu dirayo waraaqaas waxay u baahan yihiin cid ka eegta kula saxda marka waxaad u baahan tahay inaad heshid qof mentor ah ama la taliye ah oo arrimaha ka caawiya dhammaan waxaa jaamacadaha oo dhan qofka application fees yar baa laga qaadaa $50, $80, $100 jaamacadaha ugu qaalisan $100 aad bixinayso waxa laga yaabaa inay kuu saamaxdo jaamacad lacagteedu tahay $200,000 inaad scholarship ku hesho scholarship-yada waad soo waayi kartaa adigoo ka waayay scholarship meel kale lagaa siin karaa laakiin waxa muhiim ah kow inaanad isdiibin laba aad jaamacad codsiyo badan dirsato saddex aad heshid cid ku gaargaraysa oo waxaan kula eegtaa afar in aanad marnaba aanad soo dhiganin halkaa ma gaari kartid meel aan la gaari karin male Dr. Xasan ayaa haatan waxa uu tagay in ka badan 20 dal waxaana ka mid ah dalalka uu tagay Mareykanka Faransiiska Jarmalka Switzerland Poland iyo dalal kale oo ka mid ah qaaradaha kala duwan ee dunida shirarka Dr. Xasan ka qayb galay ayaa waxa ka mid ahaa kuwa ugu muhiimsanaa shirka caalamiga ah ee qalliinada kaasi oo ka dhacay Poland iyo shirka wasiirada caafimaadka ee Afrika fursadda waxbarasho ee Xasan ka helay jaamacadda Harvard ayaa u saamaxaysa in uu shaqo ka helo mid ka mid ah wadamada ugu horeeya dunida balse Xasan ayaa waxa uu ka doortay inuu dalkiisa dib ugu soo noqdo sababta ugu weynina waa tan waxaan ogahay in wadankeenu aanay cid kale u imanaynin oo aanay ka shaqayn doonin Chinese halkan ma imaanayaan ma hagaajinayaan Mareykanintu halkan imaad ma hagaajin doono dal walba dadkiisa ayaa dhistay waxaan haatan u socdaalaynaa magaalooyinka Gabiley iyo Boorama waxaan booqanaynaa dugsiga Dr. Xasan oo ka bilaabay waxbarashada oo ku yaala magaalada Gabiley laguna magacaabo Sheekh Maxamed Warsame halkan aan joognaa waa magaalada Gabiley dugsigan iga dambeeyana waa Sheekh Maxamed Warsame Primary School ama dugsiga hoose ee Sheekh Maxamed Warsame oo ku yaala magaalada Gabiley dugsigan ayaa waxa uu yahay kii uu ka bilaabay himiladii gaadhay in uu Xasan wax kaga barto mid ka mid ah jaamacadaha ugu qaalisan dunida ama jaamacadda ugu horeysa dunida loo yaqaan halkan waa magaaladii ku dhashay Xasan sidoo kalena wax ku bartay mar walba wuxuu la kulmayaa dad yaraantiisii halkan ku yaqaanay gaar ahaan waqtigii uu dugsiga dhigan jiray runtii xiise gaar ah ayay u leedahay isaga iyo
faamiligiisuna halka ku kulmaan. Dr. Xasan ayaa waxa uu ka mid ahaa 2 arday oo ku guulaystay mid ka mid ah 2 kursi oo looga baahnaa qaaradda Afrika, kaasi oo u baahnaa Maxadka Horumarinta Adeegyada Qalliinada iyo Suuxdinta ee Harvard Medical School ee dalka Mareykanka. Haatan waxaan soo gaadhnay magaalada Boorama, waxaanaan booqanaynaa jaamacadda Camuud oo ahayd goobtuu ka bilaabmay hayaanka horumarka ee Dr. Xasan. ugu dambayn waxaan booqannay waaxda kaydka dhiigga ee cisbitaalka guud ee magaalada Boorama oo hirgelinteeda uu hormuud u ahaa Dr. Xasan, waxaana tani suurtagelisay lacag dhan 10,000 euro oo Xasan iyo kooxuu hormuudka ahaa ay ka ururiyaan internetka dhexdiisa si wax loogu qabto bulshada, horumarna loogu gaadho caafimaadka guud ahaan. tanina waxay tahay mid ay bulshadu kaga dayan karto horumarka dhanka caafimaadka ee Xasan uu ugu deeqay magaaladii wax ku bartay. Dr. Xasan ayaa haatan waxa uu ka shaqeeyaa hay'adda caalamiga ee ICRC oo ka shaqaysa arrimaha caafimaadka, gaar ahaan gargaarka iyo fidinta ambalaasyada. hamiga Dr. Xasan ee mustaqbalka dhow ayaa waxa uu yahay sidii guud ahaan deegaanada Soomaalida looga samayn lahaa horumar buuxa oo dhanka caafimaadka, gaar ahaan qalliinada. Dr. Xasan ayaa sidoo kale waxa uu ku guulaystay abaalmarino kala duwan, kuwaasoo dhammaantood ahaa doorkii dhallinyaranimo ee Dr. Xasan uu ka qaatay bulshada dhexdeeda. asxaabta, sheekada Dr. Xasan ayaa waxaan ka baran karnaa haddii ay noloshu ku siiso fursad fiican oo aad ka hesho dal ka duwan dalkaaga, inay marun muhiim tahay inaad dalkaaga dib ugu soo noqoto, isla markaasina aad kaga qayb qaadato wixii horumareed ku kordhin karto dalkaaga, haddii ay noqoto dhanka caafimaadka sida Dr. Xasan, haddii ay noqoto tiknoolajiyadda, dhaqaalaha kale iyo qaybaha kale horumarku uu ku koobay, maadaama mar walba ay muhiim tahay halkaad u soo noqonaysaana ay tahay dalkaaga. Wuxuuna waa Ayuub Show, wana soo muuqaal cusub.